dalbaday in aan dadka la hadlo wax kale feebaan jira horta intaanan hawl kala gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa igu kalifay dadka qaba cudurka aniga hadda aan ka hadlay waxa weeye cudurkan ka hadlay waa cudurka HIV/AIDS oo ummadda Soomaaliyeed dadka qaba iyo dadka dawada qaato ayagoo qaba dawada qaata iyo dadan dawada qaadan basan sheedka intuu marayo maxaa kalifay oo dhibka inta la keenay aniga qaabkay igu dhacay waxaan rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed la wadaago meel kasta cid kasta af Soomaali ku hadasho inaan la wadaago waxaan rabaa aniga wixii soo gaaray iyo wixii aan arkay iyo intii hadda xanuunka aan la noolaa wixii ma garanaysaa aan la kulmay iyo dadka dhibaataysan oo saasoo kale xanuunka qaba waxyaabaha qofka bini'aadamka naftiisa inuu ku kalsoonaan karo si aan ba ugu kalsoonaan inuu taliyaan ahay meel baan joogaa macnaha waxa igu kalifay waxa weeye waxaan arkay wax badan oo dhibaato ah oo geysanaya haddana dan aan laga lahayn oo bulshada inuu ku baraarugsanay wayahay waxaan jeclaan lahaa bal Bashiir ahaan qisada adiga ku soo wajahday iyo waxaad kala kulantay iyo marxaladda aad hadda ku sugan tahay bal sheekadaada inaad guda gashid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow waxaan ku soo koray meel yada Buurdubo baadiyeed ilaa 97 Puntland ba joogo intii ka dambeysay askari baan ahaa marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaa taariikhdeeda hadda intaasan ku soo koobayaa anigu hadda waxaan ahay taliyaha saldhigga kontaroolka galbeed ee Garowe waxa hadda aan ka hadlayo xanuunkan waxay ugu dhacay 2016 bishii 8 ayaan gabadha guursaday gabadha aniga xanuunkan ka qaaday waxaana iska helay xanuunka 12aad isla sanadkii gudiis marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale siday fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad iyo ka banaan tahay maxana hadda waxaan aniga tusaale ahaan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 intaynan u guda galin arinta la xiriirta waanada guud iyo waxyaabahan aad doonayso dadka inaad la wadaagtid waxaan rabnaa marka horeysa bal inaan step u galno adiga qisadaada Bashiir ahaan barnaamijkan sidoo ku soo wajahay marka waxaan rabnaa inaan marka hore qisadii Bashiir inaan ka sheekeyno ka bacdina inaan u gudubno arrimaha la xiriira dadka cudurkan qaba iyo waanada guud oo aad ummadda la doonaysid inaan galno marka hore waxaan noogu bilowdaa arintan gabadha sida isku guursateen marxaladda aad wada marteen isbitaalka markii lagu geeyay muxuu ahaa arintii masaajidka aad kala kulantay waxyaabahaas oo dhan sheekadaasi oo si kooban ah oo qurux badan inaan noo bilowday marka haddaan marka anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waan dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka dib adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigoo maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay haddii xanuunkaas muddo aan sida ahaa waxyaabo badanna waan arki jiray oo maartay gabadha oo dawo cunaysan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxba igu soo dhici jiray kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriye kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan iri waxay tiri waa xasaasiyadda la cunaa
weligeyna ma arkan inaan arkay maayo marnana ma soo dhigan cudurkaanaba meesha maarta sida macnaha fahan la'aanta ugu qabay baan waxyaabaha ay keenay bay ka mid tahay inaan TV imaado soo fariisto ummadda islaamka oo dhan u sheego haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan is iraahdo ma uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad ma habeenada ka mid ah ba xanuunka soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mar guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdii aan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan yidhi saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadday iigu jawaabtay waxay tihi waa xoogaa hadal baana dhex maray markii hore waxay tihi adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tihi waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maartay xanuunkaas nin baa ila joogay marka ila socday sarkaal asna waan rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqaana markaa ka tagnay ninkii waxaan ku yidhi niyo hadalkaasi leedahay ma gaarigay wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga kusoo dhacay markaasuu yidhi niyo hadday saa leedahay anay xanuunkaa qabtaa ninkaa hadalkiisii baa anigu horta waxay geliyey iyo xanuunka i haya oo halkaa laabta iga haya dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan nimid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama ninna hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka baarbaarinay wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay carruurta jirtaan u malaynayaa khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyey oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan idhi waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiigiga qaaday waxaan ku yidhi war xanuunkaasaan iska baaraya dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninkii war xanuunkaasaan iska baaraya iga baarinayo waayahay yidhi mishinkii wuu la aaday nin garanayuu ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waqtiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday buuraaqii siinaya anigana xoogaa dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysna halkaa ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yidhi warniyo nin iimaan kale ama ahiye qof islaam aan ahay wax kastana qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa hadday wax jiraan ma ii sheegtid aniga waxaan ku weydiistay waa garanaysaa ina keen biyo gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku waday ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha HIV-ga lagu baaro xagiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yidhi wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay dee waa dareemaysaa qofka maar dejin u ah buu xaggaas waxaan ku yidhi wareedhe horta ii kala caddee beena kuu sheegay maya markii intuuna wax ii sheegin waa baqay waa cabsinay warka markii la qarxiyey iyo markii kale hallaba ii ahayd waxaa dhacday ninkii wuxuu yidhi waa positive waa qabtaa laakiin annaga keenna mid ka casirsan ba halkan yaalla oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahy igee baan idhi meeshuu igeeye waa laga qaaday 3 waxyaabood baa lagu qaaday testi ah 3 waa laga helay dadkii waxaa la yidhi saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa kusoo degdegtay laba maado gabadhaan magaalada ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaalada weli joogtaa ma tegin iyo xaaski kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda kusoo degdegtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay kale culayska fuulay ka mid ahaa
bas yaa marka wakiil ku abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiilka yaa fiican nimaa ilmaadirna magaalada joogaan u yeeray waxaan gabadhina soo qaad ها xaas kale waa la keenay negative baa layidhi ilaah cilmigiisa marka waxaa jiray muddo 3 bilooda xaaskaa markaan guriga imaado xanuun baa iska kahayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhaan ismaan aragba laakiin intaa qabay dhowr jeer baan is aragnay waxaa niyadda markas iri waa kolley waa in laga helayo negative baa layidhi 3 bilood ismaan arag gabadhaan waxaa dhacday negative markii la yidhi gabadhii xaaskaygii carruurta ay dhashay hal kelmaday tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka i dejiyey lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shiirow dadkana ma dhiftid ummaddana dhib uma horseedid wax wanaagsan baadna ka shaqaysaa inta badan intaan kugu aqaan anigu waxaan u malaynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan maye isdeji xanuunka aa qabtidna aniga meel igama maqno waxa igu soo degay marka qaab si automatic markiiba waxaan xasuustay markii suuradda oraysa nabi maxamed lagu soo dejiyey iqra lagu soo dejiyey ayaa waxaan xasuustay kelmaddii khadiijo ku tiri ha bas salaad sunnaa tukaday waxaan sameeyey gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyey marka warqad message oo fariina baan u diray gabadhii xanuunka la haygu ridday markaan u diray waa meesha keliya maskaxdaydan ka shaqaysay meesha keliya oon gabadhaas ku qaban kara weeye asri waxaa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan idhi lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lamarkaadanu sahal ma leh ayadoo caddaanaan gacanta ku haya xaggee kugu imaadaan inaan qabto qorshayga wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin anima waa fadhiyo ha inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana maantii hata xoogaa baan seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaaya keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waa yahay baan idhi waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maarata nooc ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashayba warqaddii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen saan usii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxaa iyadaa kelmadda igala horta waxay tahay halkaa maxaa noo soo gelisay anna waxaan idhi maxaa xanuunkaa igu ridday saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay isu bedeshay waxyaaba aan ka soo dhaafin way jirtaa markii aan xanuunsanay xanuun ba ahay halkaa iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaaba ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensaneyd gabadhaas markaas waxaan oran jiray ma malkuumeedkaygaa lagu sheegay maxaad la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan gudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka laiskama xiri karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa baa li anigu marka h f iyo aids midna ma kala qaana war aids bay nagu riday gabadhaana xiraan idhi qabta kii qalinka hayaaba intu tuurayba orda ninkii la rabay inuu wax qoro shiiro ma adag kugu dhaca ma adag kugu dhacay dadku way garanayaan dee sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan banaa askartii qaban lahaydna nin walba farow ka taagay cabaar ka bacdi baa raggii baan u yeeray warkaalaya eriyo waa la yimid oobigaa la geliyey magaalada waa iga sii horreysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yidhahdeen adaad u doorlay inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku taallaa ani marka waxaan ku yidhi anigu marnaba wax la yaa wax qaran la yidhahda oon qaranayo ma jiraan
laba maadaama u qoran anigu tuutaan u xirnaa wax kastoo dhacaya oo dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan wixii xaggeeda ka imaanayo anigu tuutaan u xirnaa mid kalena way jirtaayo waxaan anigu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go'aanka anigu sii qaatay marka arrintaasay ahayd waxaa loo yeeray dad ayada baara waxa aniga laga helay laakiin iyada lagama helin weli moogta oo markaas iyadu ma ay khirsanayd inay xanuunkan qabto ma qirsano waxaa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirtaa waxaa loo yeeray dhakhaatiir way baareen waa laga helay CID iyo dadkii wareysanayay baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin asaga ay igu riday tiri marka hore kelmadda markay tiri ayaa waxaan idhi war aniga waxaan arkay anigu meel kalena ma marin dee meelo kaluna iga imaan kara waa suurtagal gabadha warkeede laakiin waxaan arkaan idiin sheegaya markhaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaani ana weligay arag way diidda marka guriga inay sheegto xaafaddii ay ku degtay maadaama aniga magaalada iga tagtay gurigay ku degtay inay sheegto lambarkeedii ayaa qofka u dambeeyey ay wacdo baan wacnaa lambarkaa magaranaysa haa anay la joogtaa gabadhaan ay la nosho gabadhii marka waxaan idhi boorsadeeda ma taalla haa si aniga marka aan shaki loo gelin oo aan loo oran waxaa sidaasay tahay waxaan u diray dad askar iyo dhakhaatiir isku jirto baan idhi boorsada soo qaaday gebigeeda waa la soo qaaday waxaa la keenay saldhigga way joogaan marka raggii maalintaas weliba waxbaa laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas iyadoo lagu xadgudbo boorsadeeda iyadaa gacanteeda ku furtay kaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxaa jira habeenkii keliya la laqo oo qofku markuu ageka ugu horreeya ageka labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa noocaa marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxaa dhacday maxaa kuu kalifaalay inaad inkirtid kelmadda waxay tiri anigu dee waa is adkaynayay tiri adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormuu kugu dhacaalaya waktigaas ma yaa ogaa oo dadkeena ehelkaa yaa ogaa gabar walaashay keliya ayaa mas-uuliga ahayd bay tiri og oo magaaladaas ku nool inu magaalada inaan sheego ma rabo oo dadka aan wacyigelinay ka mid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa ugu dhaceen moogta wax colaad aan u hayana ma jirto de waa magaalo dadka Soomaaliya ka mid ah waxaa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yidhi xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horreysana adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan ugu tiri geel abaar waqtigaas jilaal aad adag buu ahaa ninkii garanayaa garanaya waqtigaas geel Ethiopia loo sii wado halkaas oo maartay xogaa ka da'an maartay baan sii wadaaya de Allah isku kiin qayr u ma ogeyn bi adeer laakiin wuxuu adeer hadday gabadheeda sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtay garawana ku xiran tahay laba maadada u door leh deena waajibkaada ka gudanaysid gacantaada ku jirtaa iyo inaan magtaada ku siiyo waajibka ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midha ka wada adiga ma soo doona hawl u qaata asaga marka adeer waxaan ku yiri hadaan ogeyn waxna kula ma jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacadan laga bilaabo gabadhan afis bay gata laakiin sidii wadada aan soo marin lahayn kaliya falankeeda qabanaya waxa jirtay marka gabadha waxa u yimid oo wax ka qoray CID-da maxkamadda si hawshaas maartay waxa la isku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxa la isku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo asoo xanuunka qaba nooca sameynaya oo qof diloo la mid yahay hala togto marka maxkamaddii iyo CID-dii ani maadaama waxa iga soo go'ay waxaan isiri gabadhan xaaskaada is noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo
kow wax kalena way jiraan oo dee wax marka culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaloo aniga aan wax loo dabaalan karaa loo dabaash laakiin gabadhaan inaan cafi xag ilaahay ka cafiyo aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay CID-dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula taltaliyay way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yiri oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socday si ay magaalada waddanka uga baxdaba markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhammaynayana biilkeeda iyo waxeedana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daray waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waa dareemaysaa nin buko 100 kuu talisay baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd kana saas ahayd iyo caana geel cab iyo kaadi geel cab iyo adigu hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan yidhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan xoogaa dawada cunaan bay anigu waa iga baxa ninkan ku soo baaraya baan dhahay waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kaleba ha noqotee waxay ula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag hadda aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadib shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yidhahdeen iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhiggii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxaa leeyahay haddaan wax hagaajiyaba marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkii ugu dhashay waxay ahaayeen dee waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkooda la cunaa xaggaa laga laabtaa marka aniga wixii o dhan intaan joojiyey baan dawadayda si toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xidhan qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin macnaha su-aalaha koowaad aan samey maxaa dhacaysa xanuunkaasaan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahdaan ninkaan buuran oo noocaana beentiis wey taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waan soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa 18 marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yidhahdaa wax intaa ka yar kolley dee ma hadda ma haye statidii markay sameeyaa waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo anigan aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahane wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuunka horreeya markii hore aan xanuunsanaa baan idhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka igu dhicin iyo hadda markii hore aan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maaragtay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad maxaa kamid ah way jiraan 3 caqabadood baan horta garanayaa